aragga iyo maqalku waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bini'aadamka waxayna dadka xubnahaasi la kulmaan caqabado kala duwan oo la xiriira faquuq uga yimaada qaar kamid ah bulshada iyo inaysan helin fursado shaqo iyo mid waxbarasho. caqabada ugu weyn oo haysata waa bulshada. sababta bulshada waxay aaminsan tahay in qofka naafada ah oo baahi gaar ah qaba uusan waxba qabsan karin. takoor badan bay la kulmaan oo ku salaysan haday noqoto waxbarashada, haday noqoto inay shaqo helaan. marka midda ugu horeysa horta challenge-ga ama caqabada ugu horeysa waa taas. midda labaad waxay tahay in aysan helin goob waxbarasho oo hadda maaragtay ay mar walba ay tagi karaan. bandhigida tiknoolajiyada oo sanadihii dambe ku soo kordhay dalka ayaa ah madasha ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigi karo hal-abuurka la xiriira farsamada tiknoolajiyada casriga ah. macadka Hana Academy waxaan nahay institutionada ugu horeeyay runtii wadanka ka furmo oo xirfadaha gacmaha dhiibo. waxaan suubinaa oo dad dhawoolayaal ah xirfado la siiyay dhismaha dhihin iyo sheeg farshaxan hadhihin waxyaabo kala duwan ayaan barnay. qalabka aad ku aragtay oo maanta meeshan lagu soo bandhigay wax akhriska ay u fududeynaysaa iyo dadka oo aragtida ku daciifka ah ayaga laftigooda dadka dhagaha aan lahayn iyo dadka oo aragtidooda gaaban tahay. marka waxaan sidaad u aragtaba qalabadaas oo kale ayaa diyaar u ah. waxa kaloo jiro alaabada kale oo drones ah iyo dhalinyaro badan oo la baray maxaa la dhahaa software and mechanical engineering oo runtii faa'iido weyn ay u ahayd dadka rabaan oo kale specifically inay suubiyaan coding iyo programming si ay runtii ay mustaqbalka markay rabaan inay suubiyaan maxaa la dhahaa warshado waaweyn oo kale ugu saamici lahayd hal abuurkooda inay u adabta gareeyaan. agab ka kooban tiknoolajiyada casriga ah oo u sahlaya dadka aragga iyo maqalka la inay uga faa'iideystaan waxbarashada ayaa lagu soo bandhigay shirka Somali STEM oo lagu falanqeynayo arrimaha isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha, shaqo abuurka dhalinyarada iyo kuwa kale. si loo fududeeyo falgalka ardayga inuu meel walba tagi karo adigoo aniga had saa u sheekaysaneen uu noodkiisa qaadan karo. qalabkana soo baxay electronic way noodkiisu qaadanaya STD card baa ugu jiro. hadhowna marka wuxuu sameyn karaa inuu markuu casharadiisa inta noodka ku qaato intuu macalinka hadlayo macalinka markuu homework u diro ka soo shaqeeyo inuu hadhow macalinkii uu flash ku siiyo oo casharkii macalinka asagoo bareel aqoonin uu qaadan karo. tan waxay fududeynaysaa in ardayda laga macnaha waxbarashada laga siiyo fasalada aanan ahayn maaragtay dadka loo baahiya gaarka ugu talagalay. waxaan runtii rabaa aad inaan u barmood gareeyo waxbarashadeedana salkeeda ay ahayd in ay ardayda baahiyaha gaarka qaba iyo ardayda kale ay isugu meel wax ku bartaan. bandhigan horta midka ugu horeysa waxyaabaha ugu horeeya horta aan ka wadnay waxay ahayd awareness in horta ogaansho in la ogaado inay jirto qalab sidaan oo kale ah oo ardayda ka caawin karo. kow markii aan qiimeyno anoo ku takhasus qiimeynta ardayda siday waxbarashadooda u horumarin lahaayeen. markaan qiimeyno kadib inaan ardaydii aan siin karno runtii wacyigelin aad u fara badan ay arrintan tahay. midda labaad inaan macnaha tusino dadka inaysan Soomaaliya aysan ka harin adduunka ay soo gaaray casrigii adduunka wixii ka jira oo ilmaha maanta Mareykanka joogo ama Ingiriiska joogo qalabka uu haysto inay maanta Muqdisho dhex taalo.